abaar xun baa ka taagan meesha baad iyo biyaba waa xaaluf weeye wax yaala ma jiraan waxaana joogaa matoorka xiro jaale motoristan ka ahay waxaana naga xun matoorka qaybta solarka iyo bandalka oo motor iyo la shaqaynayay solar labada qaybood baa naga xun mid labadu waa naga guban yihiin oo dab aba ka dhashay baa gubay meeshuna wax shidaala oo magaaladu ay leedahay ma jidho shidaalna waxa noogu sokeeyo guldagob iyo bursaalax iyo beyra iyadoo tanagii hal tanag lagu raadinayo isagoo haddana qaali ahaaba tanagii lagu soo raadiyaa saas caqabadaas aan haysato oo baahida noogu weyn oo hadda matoorka inaan damino inooga taagan tahay shidaal aantiisii weeye dadkii wuxuu imaanayay iyo qarashkii laga qaadayay iyo way isdabari waadeen iyo shidaalka hadda meeshu marahayo dad badan oo soo guudhaa oo meel kasta caalamka dhan laga soo guuray dad badan oo geediya ah oo soconaya iyo kuwa degaan ah inta waa joogaan waana lagu oomay carrada oo nacfi hadda lagu nagaadana ma dhulku baahida marka ugu weyn biyihii baa hadda laga ooma ay taaganta matoorkii noo shaqaynayo yaa shidaal dartiis baa u naga taaganta hadduu solarku noo shaqayn lahaa qaybta hadda oonka iyo dhibta hadda naga haysato nagama haysateen كلمة نجاري سام عنها أنت اللي سوقها هي اللي جسوقها هي شذالكي المدة قاعدة رسا المركبة هذا النجون هذا سولار كاس غيب تاسوي والله سبين كرا ده واحد لقى سبين كرا باندل كو أنفتر كلو إلا بدلوي ما هن معناها إلا بدلوي نال كبدلوي بهن على كتير وما يسا واحد بيه ترك بيها كقاعدة لها بيوين واحد كلا نعرف كلا يسكده ترك بيها قاعدة لها وهي كلا سبح لها ين بيوين أولي هنا واسكح معين سيدا سويه بيه قليل انت مقالة نقول شدينا توبين كيران وانا قاش شبين ومقالة بيه هذا ما آذان توبين كيران واود شبيين مركز هرانا توبا ما هاي توبا يري هاي أنكف اللين مقالة باهي عند بيركري ها أنتنا وين قاش شبيين عقبات وين كذا عادي ويا نعرف بانتهى شيء بيا معناها شبيسي هذا أنا معناها سفي عن فارس وين بانتهى كريبي سفي عن بناء وسودي وشباب ساسو شبيين وارتسيد كليبدا كم موقدي عيلكي بلشدو أي لهايد oo waxa weeye 6 sano noo dhisan curyaamin baa lagu hayaa agabkiisii loogu talagalay 80% ma haysto waxa ka koow ah in solarkii uu waxa weeye dansan yahay oo ninka ceelka jooga uusan xataa biriiskiisa ka heli karin maanta shidaalkii uu qaaliyoobay taniga shidaalka meeshu maray aad ogtiin xoolaha aad aragtay ay joogaan koow in tuubooyinkii magaaladu ay cabbi lahayd oo aad aragtay mid tuubada aad aragtay oo baaso weyn ay gelisay aysan ka jawaabin ayagoo gobolkii jooga degmada ayagoo jooga 6 sano dadka waxay cabbayeen baraagahooda iyo ceelkaas ay dameer u dirsadaan bay cabbayeen fuusada biyaha waxay ku maraysaa 5 door bay saacadan ku maraysaa dad qaabili karana ma aha dad xamili karana ma aha ayagoo dadku awalba ahaa dad daneed ayagoo ahaa haddana biyihii hadday ka fogaadaan oo meesha aragtay 1 kiiloomitir iyo waliba wax lagu daraa qof halka jirgaan biyaha ka soo jiidi kara ma jiro waxay ku qasban yihiin marka in biyihii ay ka gataan waxa weeye dadka ayaga u keenay ilaa waa naf dadkii waa ku qasban yihiin ninkii ceelkan intuu biyo soo qaado soo xamaalo magaalada dhexdeeda ma keeni karo oo baraagti fuusada ku shubaya biyihii cabashada ugu koobaad weeye waa inay wax ka qabtaa dawladda waa inay wax ka qabataa dawladda Puntland waa inay wax ka qabataa maamulka cusub ee Xasan Sheekh waa inuu wax ka qabtaa federaalku waa inay wax ka qabtaa taa waa mid ceelka way halka waxa isugu yimid ummad badan oo aan kaga faa'iideysanaya jaaniskan ummad badan oo gobolada Soomaaliya oo isaga yimid oo abaaraysan oo xoolahoodii iyo wadankoodii la soo barakacay wadankoodina ka soo barakacay oo halka yimid meeshaana daaq iyo naq iyo daaqsin midna kuma harin ummadda waa isku dul dhibaataysan tahay annaguna waxaan ku kari karnaa ma jiraan waxaan leenahay inay hay'aduhu
dowladda federaalka dowladda Puntland dhammaanteed wixii islaam ah wixii wax la soo gaaraa ummadda annaguna wax ma tari karro ayaguna wax ma haystaan waa dad abaaraysan xoolo macaluuleed bay wataan annaguna waxaan ku kari karnaa ma jiro biyo ma lahan ceelkayga kaas halkaas 2 kilomitir buu noo jiraa tuubooyinkii naloo geliyay baas way noo gelisay one time baan naloo geliyay hal ceel uma filla magaalada waxaan arkaysaa 2 ceel ka taagan tahay Puntland annagu waxa weeye cabashada iyada ha eegto si buuxda ha u eegto abaar xun baa ka taagan meesha baad iyo biyaba waa xaaluf weeye wax yaala ma jiraan bal dhamaanteedna Allah naga xaftiyo kulligeena Ilaahay abaarta iyo dhibka iyo kurbada Allah naga qaado meel walba aan joogno ilaa rabbi anaga na qabo